waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii barya بسم الله maanta waxaan ka saan baqaadna halkeen ugu joogtay maalinka hore marka maalinka hore waxaan soo dhignay lafaha ilaa iskalka lafta madaxan soo qaadanay skeletonku waxa weeyaan noocyadiisa shaqooyinku qabto structure-kiisa guud oo sawirkeen lafaha soo baranay iyo magac kasto lafta ay leedahay sidoo kale waxaan baranay lafta madaxa oo iskalka iyo qaybtiisa maanta aan galnaa vertebral column marka iskalka iyo vertebral column ku axial skeletonka ka mid yihiin vertebral column-ka waxa la yiraahdaa laf dhabarta magac kale leedahay magaceeda kale waxaan u bixinaa spinal column marka haddana spinal column idhaahdo haddana vertebral column idhaahdo haddaan doono waxaan odhan karaaba vertebra laakiin wayna iidaas u dambayso vertebra backbone iyadoo ingiriis laakiin kuwaasa scientific waxaan imaanaa vertebral column laf dhabarta maxay tahay inta tirada lafood ay ka kooban tahay waxa la yiraahdaa waxay ka kooban tahay 3 lafood way 3 lafood ay ka kooban tahay waxa la isku dhahaa vertebrae waa jamac lafti kasta kaliya ta ay mufradin waxaan markaa noqonayaa vertebra waa singular kana plural shaqada laf dhabarta marka waa 3 vertebrae saaran oo isku wada xidhan shaqada qabataa waa maxay wax kala ma aha xangulaha xariga xangulaha dareenka wada maskaxda ka soo qaadayna oo protection sidoo lafu protection shaqadaas ay qaabilsan shaqo kale ay qabataa maxay it supports the whole body jirka dhan bay taageertaa hadaan laf dhabarta jirin qof jirkiisa muu si fiican u istaagay iyadoo la qaybiyo 5 qaybood baa loo qaybinaya 5 region laf dhabarta inta qoorta samaysa waxaan u bixinaa cervical vertebra waa neck vertebra cervical waa neck laf dhabarta intan ku beegan laabta xagga inta laabta ku beegan waxaan u bixinaa ama shafka thoracic intan araxda ku beegan dhexe waxaan u bixinaa lumbar intan misigta ku dhigsan waxaan u bixinaa sacral inta misigta inta yar ugu dambaysa ku dhigsan in maanta daba dhilifta laan waxaan bixinaa coccyx ama coccygeal vertebra halkan baan ku sawirnay sawir walow lafaha yar yar aanay tirahan aan wada dhameystirnayn meeshan ugu kooban laakiin lafaha qoorta sameeya waa toddoba lafood inta laabta sameeysa waa 12 baan uga jeednaa inta dhexda araxda sameeysa waa 5 inta sameeysa inta laf dhabarta misigta sameeysa waa sacrum waa 5 inta ugu dambaysa yar niri coccyx kolada waa 4 isu geynta haddana inta isku geyno waxay noo soo baxaysaa 3 lafood intaas noo soo baxaysaa kadib waxaan guda gelinaa kuwan waa iyagoo isku dhanay mid kasta oo kamid ah midii kamid waxa la dhahaa vertebra xabad been gaar u la soo baxnaa xabadaasna eegna waxay ka samaysantahay vertebra marka waa mid kamid ayada kuwan aan tirinay ee 3 ka sameynaya mid kasta oo kamid qaabkan u samaysantahay aan ku sawirno waxay ka samaysantahay qayb la wada centrum oo dhexe centrum waa inta dhexe anaga ku muujinay inta soo wareegsan baa la centrum waxaan la load bearing body oo qaybta culayska qaadaysa lafta culayskeedu ku dhacayo loadka culayskiisa waxa jir qayb la neural arc qaansada dareenka oo si qaansada u samaysantahay neural arc marka neural arc waxa weeyaan waa inta ku wareegsan intaas ku wareegsan sidii qaansada waa wareega halka kuma inaan muujin baan falayaa marka dan salaxadaas kala qaadno halkaas noqonaya neural arc way neural arc gudaheeda waa inta wareegsan arc waxa ka timaada qaabka qaanso kala sameeyay waa marka iyadu waa laf waa bone gudaheeda dalool baa ku jira daloolka ku jira waxa bixinaa neural canal waa marinkii dareenka meesha waa meesha xanguluhu dhaxmaro spinal cord
xariga spinal cord meeshu dhaxmaro soo kale waxa loo yaqaanaa neural canal neural spine oo la oran karo ama neural spine ama neural canal waxa jira laba lafood oo lafabaaleed la dhado oo labadaas hareeraha xiga weyn two transverse process waa laba iyagu waa two waa labada hareeraha xiga iyo meel ay ku lafdhabarta lafta kale lafdhabarta sameynaysa ay ku duligto oo waa afar labadan iyo laba kale dhinaca kale xiga marka iyagu afarta meel waxa la four articular facet bay noqonayaan iyo labada dhinaceeda kale macnaheedu waxa weyn halka ay lafuha iskaga surmayaan midba mid kale ku xirmayso haddaynu ku yar celino qayb dhexe oo la yidhaahdo centrum qayb iyadu transverse process la yidhaahdo oo muruqyada ay ku dhegayaan qayb dareen ku dhex maro la yidhaahdo neural canal qaybta ku wareegsan oo bixinaya neural arc neural spine waa lafti iyadu iyo tii toos u baxaysa iyo meesha ay lafuhu ku dhigaan oo la yidhaahdo articular facet marka dhammaantood mid kasta intaas ka kooban tahay laba kastoo isdul yaalaana waxa isku dhejinaya waa articular facet kasta xarigaasuna dareenkuna halkaasuu dhex maraya inuu bixinaya neural canal taasna waa laftii uu sii dhex soconaya intaa marka nu nimaadno waxaan imanna waxaan gudagelaynaa waxa loo yaqaano intervertebral disc wax kale ma aha iyadu waa carjow cartilage waa carjow waxa la yiraahdaa is this a cartilaginous disc waa carjow u wareegsan qaabka wareegsan disc qaab wareegsan oo u dhaxaysa labadii laf dhabarba labadii kasta oo isku dhigsan ba carjowba u dhaxaysa carjowdaas loo yaqaan intervertebral disc oo halka waxa la yiraahdaa marka disc intervertebral disc waa nidhi waa cartilaginous disc ama cartilage waxa la yiraahdaa crystal carjowda shaqadeedu wax kale ma aha waxay samaysaa it allows the vertebra to move waxa samaysaa laf dhabartay oo ogolaatay inay dhaqaaqdo laf dhabartay inay dhaqaaq samayso oo qofku ay marna qalocsanto ay hore backward iyo sideward dhinac walba qalocsanto movementiga waxa ogolaaday in laf dhabartu qalqaloc samayso tan waa maxay waa laf dhabartii side view ah dhinac ban ka muujin waxaad ku arkaysaa laf dhabartii oo aad moodo inay qalqaloc sameynayso mar haddaan foorsanay haddaan toos baa u dhaqaaqa waxa uu sameeyaa carjooda u dhaxaysa weyn lafuhu ma mid isku wada xidhan ma soo kale waxa kale oo kortagta friction ama rubbing in lafahan iyaga laftirkooda isxoqaan oo islisaan labadaas ugu muhiim hadii la yiraahdo cartilaginous disc waxay samaysaa vertebra to movement of the vertebra iyo friction in islis ay meesha ka saar halka waxaan kaga baxnay vertebral column waxaan ku jirnaa baan jeedaa vertebral column waa vertebral column-ka imkiina gudagelna qaybihiis sharaxaadii guud baynu soo aragnay imka waxaan gudagelinaa shantii qaybood taa ugu horeysan ka bilaabaynaa cervical cervical vertebra waxaan naqaanaa neck vertebra laf dhabarta qoorta inta qoorteeda samaysa tiradoodu waa 7 oo 37kii 7da ugu horeeya ayaan odhanaynaa waxay samaysaa waa la dhahaa skeleton of the neck qoorta qalfoofkeeda samaysa labada lafood ee ugu horeeya laf dhabarta qoorta intan qoorta labada ugu horeeya waxa la kala yaqaanaa atlas iyo axis walabadan halka ku soo this permit rotational movement of the head waxa keenaan madaxu inuu wareeg sameeyo oo qoorteeda inaan wareejiyo kalba saa wareejiyo waxay suuro gelinayaan labada lafood waa laba lafood oo mid kale ku dhex jirto tan lagu dhex jiro waxaan bixinaa axis tan ku dul wareegaysan waxaan bixinaa atlas labaduba waxay ka mid yihiin cervical vertebra ay ka mid yihiin waxay markaa shaqadoodu waa maxay waxay ogolaadeen they allow permit to allow rotational movement of the head madaxu inuu wareego madaxayga dhaqaajo ama soo kale nodding oo marka madaxa yar aan ruuxayo labadaba way suuro geliyaan nodding soo kale waxay ka qayb qaataan in madaxu aan nodding sameeyo nodding markaan taa qoorta kaga baxno waa 7 labana aan ka barno la atlas iyo axis maadaama qoorta wareegeedii ay qaabilsan yihiin in qof waliba qoorta ma wada wareegaysa half wareeg bay sameynaysaa feedhaha thoracic ridge vertebra waa kuwa la yiraahdo ribs waa feedhihii 12 weeyaan tirahan iyagu 312 bay ka noqonayaan iyagana waxaan u qaybinaa 12 ka lafood ee feedhaha sameey baan u qaybinaa 3 qaybood qaar loo yaqaan true ribs waxa la yiraahdo 7 ugu horeeya oo 7 tiradoodu 12 ka 7 ka noqonayaan sababta true ribs waa maxay they are directly attached to the sternum laftan sakaarka la yiraahdo
laftaas sternum kala dhado ay si toos ugu dhigsan yihiin waxaana ku dhijinaysaa waxa loo yaqaan cartilage archow baa ku dhijisa marka dodobada ugu horeeya haddana halkan ku sawirnay 1 2 3 4 5 6 7 dodobada toos lafta ugu dhigsan taas waa tan u bixina sternum dodobadaas ilaa halkaas ah ayaan magacooda aan siinaa maxay waxaan u bixinaa two ribs way sababta true loo yidhi toos bay ugu dhigsan yihiin sternum kuwa kale sternumta kuma dhigsan sternumta lafta dhexe waxaan imaanaa false ribs kuwa loo yaqaan false ribsku waa the negative 3 waa saddexda xiga marka waa bear mid waa laba dhinaca waa mid waa wada bear labitanka wada bear marka saddexda xiga waa kuwan aan halkan ku dhijinay 1 2 3 saddexda kale ee xiga ayaan waxaan u bixinaynaa false ribs ayaan u bixinaynaa way sababta false ribs loo yidhi maxay iyagu toos uguma dhigsana sternumta toos uguma dhigsana way laba waxa jira iyaguna ka sii hooseeyo oo iyagu marka waxay ku sii xiran yihiin true ribs kuma ku sii dhigsan false ku true way ku dhigsan marka feeraha beenta baa la dhahaa labada dambe waxa loo yaqaan floating ribs feeraha sabeeya oo marka halka waxaan soo aragnay true ribs waa dodoba kuwana waa saddex halka waxaan ku haysanaa 12kii dodoban toonban haysan laba inoo hadhay labadaas iyagu waxa loo yaqaan kuwana gaar si haystaan waxa loo yaqaan floating ribs kuwa sabeeya waa the last two ribs and attached only the thoracic cage isagu qafaskan feer sambabada qafaskan laabta bay ku wada dhigsan yihiin laakiin waa labada u dambeeya toosna kuwan uma sii dhigsana shaqada hadaba thoracic vertebra lafdhabartan saableyda samaysa inta saableyda feeraha ay maxay qabtaa labada shaqo ugu muhiimsan protection waa ilaalin lafuhu sidoo ilaalin bay qabsan waxaan leenahay marka waxa ilaalisaa heart lungs ay ilaalisaa xubnaha jirka muhiimka ah ee wadnaha iyo sanbabada ay ilaaliyaan talabaad waxa ka qayb qaataan breathing waa neefsashada oo sida ugu qayb qaataan it plays an important role kaalin muhiim ah ka ciyaaraan door muhiim ah ka ciyaaraan qofku markuu neefsanayo breathing in iyo breathing out inhalation iyo exhalation marna waxa weyn feerayga hoos bay u dhacaan marna kor bay u soo kacaan shaqada thoracic cage kuna intaas halkaas baan ku joojinaa maalinta waxaan ka qaadi doonaa saddexda kale insha Allah taala lambarka sacralka iyo coccyx intaas ka qaadi doonaa